nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada waxaanu eegaynaa rainfall ayaynu dhinacyo kala duwan ka eegaynaa roobka aynu u baahnay roobka laga maarmaanka ah roobka ku xidhan inaynu wax beernaa ma xoolaaynu dhaqano rainfall reliability waxaanu ka eegaynaa dhinaca number 1 waxaanu ka eegaynaa xilligeebaynu u baahanay inaynu biyo helno sidaynu ognahay xilli baa lagu talagalaa in dalaga la beero ama midhaha ama crops-ka la beero tusaale ahaan imika haddaynu deegaamadeena eegno dadku xilliga jiilaalka roobku soo dhawaada kaleysha waxay preparation ku sameeyaan beerahooda carroog bay ku sii sameeyaan hadday doonaan waxay sameeyaan shinaawaarayn bay sii sameeyaan way sii qodaan waxyaalo badan bay ka sii qabtaan si guga soo socda ama guga dhawaantii doona ay dalagii u beeraan haddii guga roobkii la waayo iyadoo midhihii la sii shinaawareeyay oo lagu riday beertii lagu riday haddii gugii ina weydaarto oo area uu ka dii waayo it means midhahaasi bixi maayaan maxaa meesha ka baxay reliability isku halayntii xilligii la isku haleynayay in roob la helo ayaa meesha ka baxday waana dhacdaa mararka qaar marka rainfall reliability xilliga baynu roobka u baahanay waxaynu u baahanay deegaan kasta xilligu roobka u baahay xilligii uu u bartay inuu roob da'o oo uu dalag beero ayuu baahay marka xilligii hadii la waayo sanadka midha la'aan baa dhacaysa sida xilliga abaaraha dhacdo oo kale amount of rainfall roob intee leeg baynu u baahanay waynu ognahayo dalag kasta maanta dalkeena bariiska ma beeri karo because bariiska iyo dalagyada la midkii waxay u baahan yihiin roob weyn bay u baahan yihiin oo biyo badan daad sameeya dalagyada qaarna roob yaroo ciid uun qooyay ku baxaan marka iyada lafteedu waa dhinac kale ka istaagayno amount of rainfall roob biyo intee leeg xaddi biyo intee leeg baynu roobkan uga baahnay dalaga aad beeraysa ama aad doonayso inuu dalkaaga ka baxaano waxay ku xidhan tahay biyo intee leeg imisa millimeter oo biyo u baahan yahay muddada uu baxayo haddii inta millimeter uu u baahan yahay biyo ka yar ay dhulkaaga ka uu roobka dhulkaaga ka daa sameeyo waxba ku bixi maaya ama way ka xumaanayaan hadday ka bataana waxa laga yaabaa inay waxyaalo kala keenaan oo dhinacii kale damage ka gaarsiiyaan marka waa inay isu qiyaasnaadaan roobka area-da ku nooshay ama dalkad ku nooshay ka da'a iyo baahida biyood ee dalaga aad beeraysa waa inay ismatch gareeyaan rainfall distribution it means how many months it can rain or soil can be wet imisa bilood ayaynu u baahanay in roobku da'o oo geedku uu carrada ka helo qoyaan macnaha loo jeedaa wax kale ma arday waxa loo jeedaa dalagyada qaar waxay u baahan yihiin inay roob ka helaan 3 bilood qaar waxay u baahan yihiin inay roob ka helaan 5 bilood qaar waxay u baahan yihiin inay roob ka helaan 7 bilood qaar waxay u baahan yihiin roob ka helaan all the year sanadkoo dhan haddaba haddii dalkeennoo kale 3 bilood baa badana waxaa laga soo bilaabayaa maalinta roobku da'o ilaa intay carradu si sax ah u sii qoyan tahay ee roobkii da'ay uu carrada ka sii qoyan yahay with that 3 months 3 bilood ayay dalagyada aynu beeranaa ku baxaan wixii ka dambeeya inta badan way noo bislaadaan ama way ku dhawaadaan xilliga bislaadka haddaba dalagyada qaar baa u baahan 8 bilood inay marka rainfall distribution wax kale ma aha waa from the onset of the rains maalinta roobku da'aya laga bilaabo ilaa inta ay carradii si sax ah roobkii da'ay awgii ay u qoyantay marka inaga dhulkeennoo kale sida aynu sheegnay 3 bilood approximately ayay intii roobku da'ay inta carradu biyihii muxuu ahaa sii qoyan tahay ayay qaadataa dalagyada aynu beeraynaana waa inay ahaadaan dalagyo 3 bilood ku awoodaysanaya oo flowering stage-kii ku gaadhaya rainfall intensity xooganaanta roobka waynu aragnayoo muddada uu roobku da'ayo way kala yartay mararka qaar maantoo dhan buu da'ayaa wuu shuuxayaa daad badan ma samaynayo biyo badan ma samaynayo mararka qaarna
roob yar baa da'aya jiingada waxa laga yaabaa jiingadaha inuu ku jiro iyo guryaha inuu ku jiro inuu qaw kaga siiyo muddo kooban inuu doo muddada kooban ee uu da'ay inuu biyo badan sameeyo kii shalay ta da'ay ee 3 saacadood inahayee shuuxa ahaa biyo muu samaynin laakiin ka maanta da'ay barka qura inahayee dhulkii oo dhan wada biyo wada daad buu ka dhigay macnuhu waxa weeye way kala xoog badan lama eegayo muddada uu da'ayay laakiin waxa la eegayaa keebaa xoog badan oo biyo badan noo sameeyay iyaduna saameyn bay agriculture ku yeelanaysa oo biyo way noo kayd samaya oo beertii baynu ku duwaynaa oo biyo badan bay barka kaliya roobkaas taay ayay noo helaysaa beerteen ama kayd noo galaya intaas oo dhinac baa la iska taagayaa rainfall-kii koo maxaan idhi rainfall reliability xilliga baynu ku talagelaynaa roobku daaya waa xilligeenu ilaahay uga baranay dal kastaana xilli buu leeyahay ku aboon amount of rainfall roobka daabiya inta lag baynu ka helaa biyaha aynu ka helaa way noo cabiran yihiin waa in naqaanaa dalkeena roobka ka daabiyaha aynu ka helo inta millimeter uu yahay ama inta uu ku dhow yahay waynu naqaanaa dalagaynu ka beeraynaa waynu noqdaa kii ku baxayay biyaha aynu helo rainfall distribution how many months buu roobku inoo daa jilaalkiin in gugiina bila la yaqaan buu daa dayrtiina bila la yaqaan buu daa xagaagii meelaha qaar bila la yaqaan buu daa yes jilaalkii marmar si accidentally uu dhacdo mooyaane inta badan ma aragno kuma tala galayna dalag beerano marka inta bilowda uu doo ma laba bilowda qurino daa mustahwino daa dalkiin joognay ku xirtay bashabu daa mustad daa dalkaaga inta bilowda roobku doo dalagii ku bixi lahaa ayaa lagaaga baahan inaad ka beerto rainfall intensity xooganaanta roobka the power of rain awoodda roobka da'aya uu leeyahay waxay ku xidhan tahay xaddiga biyo ee ka dhacaya ama xaddiga biyo ee la helaya waxay ku xidhan tahay xooganaantii roobka maaha muddadu da'aya waa dhibcihii iyo awooddii roobka uu lahaa iyadana waxaynu ku xisaabtamaynaa roobkani markaa waxay macnaa inoo samaynaysaa biyo intee leeg baynu ka helay mararka qaar buu intuu maanta oo dhan doo aynaan biyaba ka helin waxay dhulka qooye mooyaane mararka qaarna muddo yar buu inoo da'ayaa biyo badan buu inoo kaydinayaa biyo badan baynu beertii ku duwaynaa biyo badan baa balligii ceelkii inoo gelaya biyo badan baynu yes u safe garaynaa beertii intaasi waa rainfall waa xaggii roobka temperature aynuu nimaado temperatureki temperature waa heerkulkii waa maxay temperature waynu naqaanaa temperature maanta dib ugu noqon mayno this is the hotness waa kulaylka or coldness ama qabowga of place ay meel leedahay waxaan idhahnaa maanta way kulushay ama maanta way qabowday measured in degrees Celsius oo lagu cabiro degrees Celsius or centigrade temperature affects agriculture in two ways laba habaan u saameeya agriculture waxaan idhi markaynu temperature ka hadlayno temperature-ku waa kulaylka ama qabowga ay meeli leedahay uu wadan leeyahay ay area gaar oo la degay leedahay dalalka qaar way kulul yihiin xilliyada qaarna way qabow yihiin xilliyada qaar dalkeenoo kale xilliyada qaar wuu kulul yahay xilliyada qaarna wuu qabow yahay haddaba waxaa jira dalagyo si fiican ugu bixi kara dalalka kulaylaha ah iyo dalagyo aan ugu bixi karin oo iyagu u baahan dalalka qabowaha ee qabowgu ku badan yahay marka haddii aad ku nooshahay dal kulul oo kulaylku ku badan yahay it means maxaad ka beeraysaa ma dalagyadii qabowga ku bixi jiray mise kuwii kulaylka ku bixi jiray waxaad ka beeraysaa dalagyadii kulaylka ku bixi jiray haddaad ku nooshahay dal qabow maxaad ku beeraysaa dalagyadii qabowga ku bixi jiray yes waka marka temperature is the hotness or coldness of a place ay meel leedahay low temperature iyo high temperature laba dhinac weyn markaa ka istaagayna ma kulaylba ma qabowba kulaylba xilligu
kulayl baa